السلام عليكم walaalayaal kusoo dhawaada channelka wacdaraha adduunka. waxaynu sii anbaqaadaynaa qisooyinkeena asxaabta. waxaynu maanta ka sheekeynaynaa asxaabiga loo yaqaano Tufayl bin Amr ad-Dawsi. Tufayl wuxuu ahaa hogaamiyaha reer Daws, wuxuuna ka mid ahaa madaxda jasiiradda Carabta kuwooda ugu cadcad oo farta lagu fiiqi jiray. dherigiisu dabka kama uusan degi jirin oo nin aad iyo aad ugu hanti badan buu ahaa. albaabkiisana weli lagama xirin qof baahan. wuxuu quudin jiray midka baahan, wuxuu magan gelin jiray midka magangelyo doonka ah, wuxuu hoy iyo amni siin jiray midka cabsanaya. wuxuu kaloo Tufayl ahaa gabyaa aad iyo aad u caqli badan. wuxuu aragti dheer u lahaa hadalka kiisa xun iyo kiisa wanaagsan oo macaan. wuxuu ka soo tagay Tufayl guryihiisii Tihaama ku yaalay oo wuxuu soo wajahay Maka oo markaas loolan ku jirtay u dhaxeeya Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo gaaladii Quraysheed. rasuulkuna markaas sallallahu alayhi wasallam Ilaahay buu aad u bari jiray. hijradii ka hor bay ahayd. hubkiisuna wuxuu ahaa iimaanka iyo xaqa. gaaladii Quraysheedna dacwadii Nabiga waxay kaga hortagi jireen hub kasta oo ay awoodaan, waxayna isku dayi jireen dadka inay ka jeediyaan xaqiisa jid kasta oo ay maraan. Tufayl wuxuu dhexbartanka kaga soo dhacay loolankii u dhaxeeyay rasuulka iyo gaaladii Quraysheed isagoonan u qastin. wuxuu yiri isagoo ka sheekeynaya, waxaan soo galay Mako. markaan soo galay baa waxay arkay madaxdii waaweyneed ee Quraysheed. markaasay ii soo dhaweeyeen soo dhaweyn midii ugu heersareysay. gurigoodii ugu wanaagsanaana way idijiyeen. odayaashoodii waaweynaa baa isugu kay soo arooray. markaasay yiraahdeen, waxay ku dhaheen Tufaylow, waxaad timaaday dhulkayagii. ninkaas sheeganaya inuu nebi yahayna dhexdayadii buu kala jarjaray oo wuuna kala gogooyay. annaguna waxaan ka baqaynaa inay kugu dhacaan wixii annaga nagu dhacay oo qoomkaaga madax u tahay qoomkaaga ama adiga oo Muhammad kooxdiisa idinku soo daro. ninkaas ha la hadlin ayagoo u jeeda Nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxna ha ka dhageysan. maxaa yeelay hadalkiisu waa sida sixirkii. wuxuu kala geeyaa wiil iyo aabihiis. wuxuu kaloo kala geeyaa laba walaalo ah. wuxuu kaloo kala geeyaa ninka iyo xaaskiisa. wuxuu yiri Tufayl, Ilaahay baan ku dhaartay kamaysan suulin inay iiga sheekeeyaan qisooyin la yaab leh oo Nabiga ku saabsan oo iiga cabsi geliyaan ilaa aan go'aansaday inaanan u dhawaanin, aanan la hadlin, aanan warkiisana dhageysan. kadib waxaan soo aaday buu yiraahday masjidkii oo uu la jeedo xaramkii si aan ugu soo tawaafo asnaamtayda oo aan u soo cibaadeysto una soo barakeysto asnaamta. waxaan dhagahayga ku soo gufeeyay buu yiraahday suuf anoo ka cabsi qaba inay dhagteedu maqasho oraahda Muhammad. masaajidka markaan soo galay baan arkay buu yiraahday Muhammad oo masaajidka ku tukanaya. salaad aan salaadayada ahayn buu tukanayay. cibaadadiisuna way ka duwaneed cibaadadeena. waxa ay farax galiyay buu yiri aragtidiisii, waxaana ay gilgilay cibaadadiisii. waxaan is arkay buu yiraahday anoonan ula jeedin tartiib anigoo ugu dhawaanaya Muhammad. waxaan maqlay buu yiraahday hadalkiisii qayb ka mid ah. hadal aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa buu yiraahday. markaasaan nafteydii ku iri buu yiraahday, Tufaylow, hooyada ha ku weydo. nin caqli badan baa tahay oo gabyaa ah. hadalka kiisa xun iyo kiisa wanaagsanna kaama kala qarsoomi karaan. maxaa kuu diidaya inaan maqashid ninka wuxuu leeyahay. markaas oo Tufayl dhagihiisa ku jiray suufkii. hadduu wanaagsan yahay hadalkiisana qaado baan ku iri nafteydii buu yiri, hadduu xun yahayna iskaga tag. waan sugay buu yiraahday ilaa rasuulku uu ka soo baxay masaajidka uu gurigiisa soo aaday. markaasaan soo dabagalay. gurigiisii buu soo galay. kadib baan ku iri iidan inaan soo galo. waan soo galay buu yiri gurigiisii. markaasaan ku iri, Muhammadow, qoomkaagii waxay iiga ka sheegeen sidaas iyo sidaas oo wallaahi way iiga ka cabsi geliyeen ilaa aan dhagahayga ku soo gufeeyay suuf si aanan hadalkaaga u maqal. ilaahayna wuu diiday ilaa inuu i maqashiiyo hadalkaaga qayb ka mid ma ahane anigoo weli dhagahayga suufkii ku jiro. hadal aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa ee igu akhri qayb ka mid ah. wuxuu igu akhriyay buu yiraahday qul huwa la iyo qul a'uudu birabbil falaq
ilaahay baan ku dhaartay ma maqal hadal ka wanaagsan hadalkiisa. kadib gacanteydii baan usoo fidiyey oo waxaan qiray shahaadadii xaqa ahayd oo islaamnimadiina waan galay. kadib wuxuu yiri markaan muddo ku nagaaday si aan u barto diinta islaamka, aanan u barto quraanka intii ilaahay iiga fududeeyo. markaan go'aansaday inaan qoomkayga u laabto baan waxaan iri, rasuulka ilaahayow, anigu waxaan ahay nin la adeeco oo qoyskiisa iyo qabiilkiisu ay ka dambeeyaan, waana u laabanayaa oo waxaan ugu yeerayaa diinta islaamka. ee ilaahay waxaad igu baridaa ilaahay inuu calaamad i tusiyo, qoomkayga uu tusiyo, kaalmo iigu noqoto inay diinta soo galaan oo aan diinta ugu yeero, hadalkaygana ay rumaystaan. markaasuu wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam, ilaahayow aayad iyo calaamad u yeel Tufayl. waxaan soo aaday buu yiraahday reerkaygii ilaa aan soo gaaray buu yiraahday buur ay iiga jeedaan oo iiga wada daalacan karaan, guryahoodiina ay ka hooseeyaan. markaasaa ilaahay wuxuu dhex dhigay labadeeda indhood dhexdooda nuur sida faynuustiyo kale ah. markaasaan iri, ilaahayow wajigayga meelaan ahayn iga saar. nuurkii wuxuu u wareegay buu yiraahday ushaan watay afkeeda hore ilaa ay dadkii bilaabeen inay istusaan, aniguna aan buurta markaas kasoo degay oo usoo dhaadhacayay guryahooda. markaan soo degay baa aabahay ii yimid buu yiri. wuxuu ahaa aabahay oday weyn. markaasaan ku iri, iga fogow aabe, igama mid tihid, aniguna adiga kaama mid ahi. markaasuu yiraahday, maxaa dhacay wiilkaygiyow? markaasaan ku iri, waan islaamay oo waxaan raacay diinta Maxamed sallallahu alayhi wasallam. markaasuu yiraahday, wiilkaygiyow, diintaydu diintaada weeyaan. waxaan ku iri buu yiraahday, orodoo tag oo soo qubayso oo soo daahiri, dharkaagana soo dhaq, kadibna ii imow, waxaan ku barayaa wixii la soo baray. wuu baxay buu yiraahday aabahay, wuu soo qubaystay, wuu soo daahiriyay, dharkiisina wuu soo dhaqay. kadib waxaan u bandhigay islaamnimadii, wuuna islaamay aabahay. xaaskaygii baa kadib ii timaaday buu yiraahday. markaasaan ku yiraahday, iga fogow oo iga dheerow, aniga igama mid tihid, aniguna adiga kaama mid ahi. markaasay waxay igu tiri, maxaa dhacay? hooyada iyo aabahay baan kugu furtay. markaasaan ku iri, islaamkiiba aniga adigana kala geeyay, aniguna waan islaamay, waxaana raacay diintii Maxamed sallallahu alayhi wasallam. markaasay igu tiri buu yiraahday, diintaydu diintaada weeye. waxaan ku iri buu yiri, orod tag oo waxaad isku soo daahirisaa biyaha Dishara. Dishara wuxuu ahaa sanam qabiilka Daws ay leeyihiin oo hoostiisa ay il biyo ka soo burqato. markaasay igu tiri, hooyada iyo aabahay baan kugu furtay, ciyaalka ma waxaad uga baqaysaa Dishara? markaasaan ku iri buu yiraahday, hooga kugu dhacaadiyo Dishara. waxaan ku iraahday, intaad biyahaas tagtid isha ah, dadka meel ka fog weeyaan, ku soo qubayso. anna waxaan ku damaanad qaadayaa dhagaxaas dhagahala inuusan waxba kugu sameeyno, wax dhibaato uusan ku gaarsiin. way tagtay buu yiraahday, way qubaysatay, kadibna way soo laabatay. islaamnimadii baan u soo bandhigay, wayna islaamtay. kadibna qabiilkaygii Rodos baan ugu yeeray diinta islaamka, wayna ka gaabiyeen inay ajiibaan. ilaa Abu Hurayra mahane qofkii koobaad oo iga ajiibay qabiilka buu ahaa. kadib baan Maka soo aaday anigoo Abu Hurayra uu ila socdo. markaasuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam igu yiri, maxaad haysaa Tufaylow? markaasaan ku iri buu yiraahday, qalbiyo daboolan oo gaalnimo badan ay ku jirto. Rodos waxaa hareeyay gaalnimo baan ku iri nabiga. rasuulku wuu istaagay buu yiraahday, wuu weysaystay, markaasuu tukaday, markaasuu gacmihiisa kor u taagay. Abu Hurayra wuxuu yiri, markaan arkay nabiga oo gacmaha kor u taagayaan, waxaan ka baqay inuu habaaro qoomkayga oo ilaahay halaag u soo diro. laakiin rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu bilaabay inuu yiraahdo, ilaahayow Rodos soo hanuuni, ilaahayow Rodos soo hanuuni, uu ku celceliyo. wuxuu milicsaday rasuulku Tufayl, wuxuuna ku yiri, Tufaylow, aad qoomkaaga oo u dhimriyo u tur diinta islaamkana ugu yeer. wuxuu yiri Tufayl, kama zuulin inaan diinta islaamka ugu yeero ilaa uu nabiga Maka ka hijrooday oo uu Madiina u hijrooday oo uu dhacay dagaalkii Uhud, Badr, Uhud iyo Khandaq. kadib baan rasuulku sallallahu alayhi wasallam soo aaday buu yiraahday Madiina jooga, anigoo wada 80 guri oo Rodos ah oo islaamay. wuu nagu farxay buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam, wuxuuna noo qaybiyay buu dhahay muslimiinta qaniimooyinkii dagaalkii Khaybar ay ka soo qaateen, buu qoomkeygana wax ka siiyay.
waxaan ku niri wuu yiraahday rasuul allah midigtaadana yeel dagaal walbo aad qaadaysid. wuxuu yiri Tufayl kama zuulin inaan nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaaladiisa la aado ilaa aan Maka furanay. markaasaan ku iri wuu yiraahday rasuul allah waxaad ii dirtaa dilkafayn oo ahaa sanam oo lahaa ninka loo yaqaan Amr ibn Hamama si aan u soo gubo. wuu ii ogolaaday buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam. waan soo aaday buu yiri sanamkii. markaasaa ciyaalkii iyo dumarkii iyo odayaashii waaweynaayo dhan oo reer Maka ahaa isugu ka yimaadeen iyagoo filanaya inuu dhibaato igu dhaca haddaan sanamka wax gaarsiiyo. wuxuu bilaabay Tufayl inuu sanamkii dab ku shido oo uu burburiyo. markaasay soo islaameen dhammaan reer Dows intii hartay oo dhan. Tufayl wuxuu laazimay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuuna ka qayb qaadan jiray dagaaladiisii ilaa uu geeriyooday. khilaafadiina uu qabtay Abu Bakar. kadib Tufayl naftiisa iyo maalkiisa iyo seeftiisaba wuxuu agdhigay difaacidda diinta iyo u dagaalankeeda. wuxuu soo aaday dagaalkii Musaylamatul Kadaab Yamaama lagula galayay asaga iyo wiilkiisa loo yaqaan Amr bin Tufayl. ayagoo jidka ku soo jiraan buu wuxuu ku riyooday riyo. markaas wuxuu ku yiraahday asxaabtii kale waxaan ku riyooday riyo ee ii fasira. markaasay ku dhaheen maxaad aragtay? waxaan ku riyooday buu yiraahday madaxayga oo timihii laga xiiray shimbirna oo afkayga ka soo baxay. markaasaa qof haweeney intay timaaday caloosheeda i gelisay buu yiri wiilkayga Amri ahna wuu iraadinayaayo waana la kala teeday. markaasay ku dhaheen asxaabtii khayr insha Allah. markaasuu ku yiraahday ilaah baan ku dhaartay aniga cabiray oo waan fasirtay waxaana ku fasirtay buu yiraahday timahaygoo la iga xiray madaxaygoo la goynayo inuu yahay shimbirka afkayga ka baxayna naftayda oo jirkayga ka baxaysa inay tahay haweeneyda caloosheeda gelinaysana inay tahay dhulka oo gudihiisa laygu aasayo. waxaan rajaynayaa buu yiraahday anoo shahiid ah in lay dilo. raadinta wiilkayga uu iraadinayana waa shahaadada uu raadinayo inuu Allah dartiis ku shahiido. laakiinse insha Allah buu yiraahday wuxuu heli doonaa mar kale. kadibna Tufayl wuxuu ku shahiiday dagaalkii Yamaama. wiilkiisa Amr ahna waxa dhaawac ka soo gaaray gacanta midig ilaa la jaro. wuxuuna Madiina ku soo laabtay isagoo Yamaama kaga soo tagay gacantiisii iyo aabihiis. khilaafadii Umar bin Khattab waxa u yimid Amr bin Tufayl oo ahaa wiilkii saxaabiga Tufayl bin Amr. markaasaa Umar bin Khattab iyo dadkii la joogay cunto loo keenay. markaasuu Amr bin Tufayl gadaal uga sikaday. markaasuu ku yiri Umar bin Khattab maxaa kugu dhacay? waxaad dib ugu noqotay cuntadii u diiday gacantaada adoo ka khajilaya oo aad ka baqaysid inaad banaanka u soo saartid. markaasuu ku yiri ha amiirul mu'miniin. markaasuu Umar ku yiri ilaahay baan ku dhaartay waad soo fariisanaysaa oo waad cunaysaa. ilaahay baan ku dhaartay dadka meesha jooga kuma jiro hal qof oo qayb kamid ah jannada ay ku jirto adiga ma ahane. oo uu la jeeday gacantiisii midigta ahayd oo Yamaama uu uga soo tagay lagu gooyay. Amr bin Tufayl wuxuu ku geeriyooday dagaalkii Yarmouk oo shahaado ku helay. ilaahay ha u naxariisto Amr iyo Tufayl iyo dhammaan asxaabtii nabiga sallallahu alayhi wasallam. walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa channelka inaad like noo saartaan inaad faafisaan qisooyinka asxaabta. assalaamu calaykum.